aan ugu talagalnay. dikadda waxaan ugu soo baxnay oon xusaynaa maanta walaalaha iyaga maaragtay guusha wanaagsan noo soo hooyey adduunyada ka soo qaaday guusha wanaagsan yaanu soo baxnay oon xusaynaa oo soo dhowaynaynaa soo dhowaadaan leenahay niyadoodaan farxad gelinaynaa.
taasi oo ahayd horyaalka ciyaarta maratoonka ah ee markii u horeysay loo tartamo. mudane cumar shirdoon cabbaas waxaan ku jecelahay inaan wax kaa weydiino amaba aad nooga waranto sharciga koobkaasi u yaalla ee markii u horeysay laga qabanqaabiyey magaalada Hiroshima ee dalka Japan. waad mahadsantahay Abubakar. sidaad ogtihiinba dhammaan magaalada Hiroshima dalka Japan waxaa ka dhacday ciyaartii ugu horeysay ee tartankii ugu horreeyay ee loo tartamayey koobkan maanta Axmed Saalax uu guushiisa ku soo hooyey jamhuuriyadda Jabuuti. waana markii ugu horeysay ee ciyaartaasi la bilaabay waxaana si sharciya loo dejiyey in 4 sannadoodba mar koobkaasi la isugu yimaado meel ururka ciyaaraha xagga maratoonka ama atletismka loo yaqaano afka qalaad meesha ay iyagu gooyaan inaa sanad walba la isugu yimaado oo taasoo dhanna ay ka xidhin oo dal walba ay u furan tahay inaa magaalo kamid ah lagu qabto orodkaas. haddaba cumar waxaa nasiib wanaag noqotay in dalkan jamhuuriyadda Jabuuti ciyaartoy ka socotay ay ku guulaysato koobkaasi markii u horeeyay la qabanqaabi. haddaba amuurtaasi maxay adiga ku leedahay in isbeddel ay ku keenayso ciyaaraha dalkan jamhuuriyadda Jabuuti? waxaan aaminsanahay anigu sida ruuxa ah dalka kani ee jamhuuriyadda Jabuuti ilaa iyo gobonimadiisa uu helay 2 sano ka dambow waxaa bilaabantay ciyaaraha orodka oo ay bilow u ahayd ciidamadan halkan nala jooga Axmed Saalax, Roble Jaamac iyo Sharma Arke iyagoo oo ciidamada ku jira la ogaaday inay orodka ku wanaagsan yihiin. dabadeeto min 1997 ilaa maanta waxaa lagu soo kala jiray inaa had iyo jeer la dhiirigeliyo la adkeeyo isku ciyaarta xagga orodka ee jamhuuriyadda Jabuuti